بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل متي ونكسن داود يا المال كستو أو هذا النجدة ونسان كسر وهذا تلفزيون كقرأة جمهورية سومالان وأنا ذكرت صار لنا أما أنا ذكرت لنا هذا استوديوها كواد التلفزيون كقرأة مقالة هرقيسة داود يا سيد الله وذا صعطانا مع أنت شلي أو كوبا جنيد اللي حيا لبعتن في ديسمبر سنة كلابكم يشني لبعتن وحدود إسرائيل أي قانون رسمي سي جمهورية سومالان كدب شنيا صدق سنوات مدة كله وأي سومالان أدونك وجمرت هذا ما أي كسوة سي احتراف عالمية سومالان كل يسقال بقول يكوب يسقال شنكي أي دي بلص نقطة حرية دي أما مدح بنالية دي أي لوميسي كدب إسرائيل أي لقى شيء وحلو رنتري صوماليا سنة كل يسقال بقول لحدنكي waxaana Soomaaliland markii ugu horeysay ay aqoonsi heshay oo wadamo ka badan ama kullu 40 dal ay aqoonsadeen Soomaaliland 1960kii markii ay xorriyadda ka qaadatay maxkamada Ingiriiska hase yeeshee Israac dhex maray Soomaaliya ayaa lumiyay ictiraafkaasi iyadoo oo halgan dhiig badan ku daatay dhaqaale badan ku burburay isla markaana mujtamac badan oo reer Soomaaliland ay nafahooda ku waayeen kadib ay Soomaaliland mar kale xaqiijisay 1990kii in ay xorriyaddeeda la soo noqoto xorriyadaasi kadib Soomaaliland adduunka kama helin aqbalaada ama se in ay dunidu yaqiinsato waxa ay Soomaaliland xaq u lahayd oo ahayd markaas ictiraaf caalamiya hase yeeshee 35 sano muddo ku dhow kadib dawladda ugu horeysay ee aqoonsatay Soomaaliland waxay noqotay Israa'iil waa wadan kamid ah wadamada Soomaaliland horeba xilli kuga dhaxeeyay ama se cilaaqaadku uga dhaxeeyay xilligii aan tusaalaha soo qaadanay ay Soomaaliland xorriyadda qaadatay haddaba tan iyo shalay markii lagu dhawaaqay ictiraafkaasi ay Israa'iil siisay Soomaaliland adduunka waxa isqabsaday dabaaldegyo waaweyn oo ay shacbiga Soomaaliland daafaha caalamka kala jooga markaasi ay ku soo dhaweeyeen ictiraafkaasi sidoo kale falcelin kala duwan ayaa ka soo noqotay wadamada caalamka dawlado badan diblomaasiyiin iyo waliba dad badan oo kamid ah ileedka ama dadka wax laga dhageystay adduunka ayaa siyaabo kala duwan u falanqeeyay markaasi ictiraafkaasi telefishinka qaranka ilaa xalay waxaad kala socoteen barnaamijyo kala duwan oo la xiriira dabaaldegyada shacbiga Soomaaliland ay sameynayaan dareenka dadka hogaamiyaasha wadanka oo hadlay xisbiyadii qaranka oo hadlay oo soo dhaweeyay madax dhaqameedkii iyo guud ahaan qaybihii kala duwanaa ee bulshada Soomaaliland oo markaasi ka dareen celiyay ictiraafka Soomaaliland la siiyay ama se ay dawladda Israa'iil ay ku aqoonsatay Soomaaliland haddaba maxaa u dambeeyay wararkii u dambeeyay halkee wax marayaan ictiraafku dhaban ama se miisaanka lag buu leeyahay Jamhuuriyadda Soomaaliland waayo dalalka markaasi laga imika iyagana la filayo xaggooda inuu ka yimaado awoodse intee lag bay diblomaasiyan leedahay Israa'iil ictiraafka Soomaaliland siisay su'aalahaasi iyo kuwa kale ayaynu isku weydiin doonaa barnaamijkan dhinacayga waxaa taagan Cabdiraxmaan Hayaan oo kamid ah bahda telefishinka qaranka falaqayaha arrimaha caalamka ee TV-ga qaranka Soomaaliland ayaan ku soo dhaweynaya Cabdiraxmaan soo dhawow waxa uu dambeeyay shalay waqti lagu dhawaaqay ictiraafkii Soomaaliland Israa'iil baa ku dhawaaqday dalka ugu horeeyay noqotay dalal kale la filaya waxa uu dambeeyay soo kordhay waa salaam aad baad mahadsan tahay aan dhawahay shalay toos loogan aqoonsigii dhacay arrinta ugu dambeysay waxa weeyaan horta waxaanu bal intaynaan taa u gelin ku horeyno waqtigan maxaa ku soo bigay aqoonsiga Soomaaliland Israa'iil oo la yaqaano dalka ay tahay adduunka meesha ay kaga jirto quwadeeda military quwadeeda diblomaasiyadda dhaqaale inay Soomaaliland aqoonsataa waxay ula macno tahay waqtigan iyo wax ku soo beegay bal horta dul marayna ta koowaad ugu horeysa waxa weeyaan adduunka oo ka qoostay meeshan Soomaaliya la yiraahdo oo laba cisho ka hor safiirka Mareykanka oo fadhiya qaramada midoobay wuxuu sheegay in Soomaaliya dhaqaale dambe aan la siinin macna qanac ba laga istaagay in wax dambe oo meesha ka galaya aanu jirin oo dhaqaalihii ay ku bixinayeen oo dhan uu noqday hal bacaad la dulsay saadar waxa ku yiraahdeen Soomaaliya iyo maamul goboleedyada iyo qabaa'ilku al-shabaab iska celiyaan taas waa mid ta kale waxa ku soo beegay isbedelka juqraafiyeed iyo siyaasadeed ka jira geeska Afrika iyo bariga dhexe oo inagu aynu ka helay chance weyn oo marka la oranay Soomaaliland ilaahay baa wata oo tan oo kale isbedelkan ka dhacay bariga dhexe iyo marinadan badda cas iyo waxa soo dhan nidaamka nabadgelyada iyo kama garanaysa maraakiibta marasa iyo waxa soo dhan ayaa waxay keeneen in Israa'iil
iyo galbeed oo dhan Israa'iil marka lagu leeyahay waxa la socday galbeed oo dhan Yurub iyo Mareykanka la socday in ay aqoonsigii Soomaaliya soo dejiso oo Soomaaliland ka dhigtaan xaliif ama saaxiib siyaasadeed oo iska kaashadaan arrimaha badda cas iyo ammaankeeda taasa keentay oo waqtiga soo dejisay Somaliland kamay mid ahayn ama qayb kamay ahayn dhismihii nidaamka Soomaaliya ka jira sidoo ognahay marxaladii kala duwanaa ee Soomaaliya soo martay haddana ilaano shirku gooriya Addis Ababa loo galay kii Djibouti loo galay kii Nairobi loo galay iminka systemkan agaha aan ku taagnay ka jira Soomaaliya ka dhisan midna Somaliland kama qayb ahayn waynu garanaa taas haddana saasoo tahay wadamo badan oo adduunka ay waxay ku qaldayeen ama ay oranayeen qadiyada Somaliland waa mid u taala Soomaalida dhexdeeda iyadoo saasi tahay isla markaana 6 milyan oo shacabka Soomaaliland ama bulshada Soomaaliland iyo dawladooduba ay ku dulmanaayeen oo ay ku xuquuq laayeen meel aan maamulin qaybna aanay ka ahayn dhismaheeda kadib waxa leedahay markaasi xilligan waxa timi baahi loo baahan yahay Soomaaliland amnihan ayay oran karnaa oo badda casba sheegtay dhaqaalahan istiraatiijiyad ahaan Somaliland waxa si aan toos ahayn ula macaamila ama u ictiraafsan wadamo ay kamid tahay Ethiopia imaaraadka oo maalgashi ganacsi iyo mashaariic waaweyn ka dhaxayso wadamo kale oo Ingiriisku kamid yahay waraaqaadka noocaas ah jiray marka waxa leedahay Israa'iil iyadoo markii hore ka muuqan xagga hore iminka iyadu ammaankeedii bay ka dhaxaragtay waa sax sidoo kale waxa soo muuqday in ay kaliya meesha baaqiga noqon karta ee la isku aamini karaa tahay Somaliland saas oo jeeda wasaad u dhigtay danahooda ka dhaxarkeen marka soo gaabay danahooda bay Somaliland ka dhaxarkeen waa galbeed oo dhan maaha Israa'iil wax weeyaan waa hormuud u tahay way daba socdaan Israa'iil maadaama bariga dhexe wakiil uga tahay geeska Afrikaba iyada ayay ku mashruucinayaan marka wadamada reer galbeedka badankoodu waa la rajeynayaa iminka Ingiriiska oo kale Mareykanka wadamo badan iyo wixii la socda caga ku wataan baa la rajeynayaa inay iyaguna aqoonsiga ku xigaan marka Somaliland 34 sano ayay samreysay oo tacadiyo dulmi lagu hayay maanta waqtigeedii ayay noqotay ilaahayna ugu talagalay inuu la aqoonsado marka inta badan waa dan laynaga dhaxarkay iyo waxaanu qabsanay ta u weynna waxa weeyaan laynagu aaminay dawladihii kala dambeeyay Somaliland marnaba China ayay siin waayeen wax xiriir inay la yeeshaan oo waxa la dalkan waa dad la soo haleyn karo dadkan dad la soo haleyn karo weeyaan Soomaaliya imka wada tahay lacagta ciidamada Mareykanka ma siinay iyo Yurub midowga Yurub siinay haddana China xiriir la samaysatay macnaheedu waa siyaasad bila waxa taa carruurtaas ka garanaysa waxa qofka lacag iyo maal ku siiyay ciidankaaga taageera inaad la socoto siyaasad ahaan ayay ku sheegaysaa siyaasadda casriga ah deetana imika waxay galbeedka ku yiraahdeen haddii anagu dhaqaalihii aan ku siinana ciidanka oo wax walba ku horeyno oo intaas milyan kugu bixinay haggana China kala socoto China lacagta ku siiyo ficil macnihiisu yahay marka taasna qayb ka tahay marka horta waqtigaas taasa keentay marka waa wax Ilaahay noo keenay oo Ilaahay nagu mahadnaq midowga Afrika sanadkii 2004 buu soo saar ayuu ka sameeyay Somaliland study ama wuxuu ka sameeyay daraasad 45 wuxuu ka sameeyay daraasad buu ka sameeyay uu yani ku qiimeynayo budhiga ama nidaamka dawladeed ama dalnimo ee ka jira Somaliland waxaana xilliga reportkiisa soo saaray noqday in Somaliland ay u qaranto in loo aqoonsado dal madax banaan oo dhameystiray haykalkii dawladnimo ama rukunadii dawliga ha dhameystiray yihiin 2025 ba xalayto state arkeenay oo soo saaray gudoomiyaha midowga Afrika wuxuu soo saaray inuu arintan ka xun yahay ma la oran karin midowga Afrika laftiisa ama wadamadii caalamka kuwa jaamacadda carabta noqdeen kuwa midowga Afrika ba noqdeen yani wixii ay midowga Afrika 2005 ama 20 sano ka hor ka hadlayeen xaqiijinayeen ayay maanta ka soo horjeesay aqliga wax arintaas maxay macna sameynaysaa dharanka sameynaysaa muxuu noqonayaa waxa weeyaan imka taa markaa hore ay sheegeen 2005 tirwo kala duwan tahay 2005 iyaga watay hindisaha iyaga daraasadda sameeyay imka waxa u jeedaan annagana la dhaafay oo adduunyadu waxay isku qadarisaa qaarad iyo gobol madaxweynaha Somaliland baa hadlay bishii August baan filayay ahayd wuxuu qabsaday maalin bil wuxuu yiri December baa la aqoonsanaya Jamhuuriyadda Somaliland December 26 baa dhacday in la aqoonsado Somaliland dad badan baa isweydiinayay ama shaki ka qabay suurtagalnimada maadaama December ba si dhamaanayso aqoonsiga halku ka imanaya meel arrimaha si waxa loo soo maamulay sirriyaho nidaam dawladeed baa la mariyay diblomaasiyadeed
markii bay shalay bambadu qaraxda madaxweynuhu ballan u qaaday December aqoonsigu imanayo isla markaana markii uu hadlay dalal badan baa dibad kusoo jiray buu yiri dariiqa kama sii hordhacayno laakiin madaxweynuhu hubantida ama yani kalsoonida uu u muujiyay shacabkiisa maxaynu ku miisaami karnaa iyo dareenka uu maalinta ku qabsaday ama bisha ku qabsaday salaamaanow marka la hadlayo ama laga hadlayo in wadan aad macaamil samaysaa inta badan wadan baa wax laga dhexeeyaan oo aynu saysinay madaxweynuhu sidii ugu wanaagsanayd ee qadiyada ictiraafka loo maamulo ugu maamulay waayo wuxuu maray challenge-ka la diblomat hayr diblomat in waxaagaa si qarsoodiyo wadato oo ilaa halka fikta ugu dambeysa u gaaraya wadamadaada la wadaagto ayaa wanaagsan inta ay wax socdaan dagaal iman kara wax caqabado kala iman kara maanta dunida waxa la international law ma shaqeeyo wadan kasta sidoo rabo kula macaamilaya maanta awoodda Israa'iil leedahay idna kama qarsoona Soomaaliya kama qarsoona nimanka halka jooga hadii aragti wanaagsan oo caafimaad qabta liiban lahayd oran lahayd warneys macaamilka arrimaha dhaqaalaha arrimaha bini'aadanimada ganacsiga wixii aynu wada lahayn shuruuc caalamiga u ogolayd shuruuc caalamiga dunida kama shaqeyso awood ba ka shaqeysa iyo siyaasad marka sad awood aad yeelato dunida ku ixtiraamaysa maanta Israa'iil awood ay leedahay bariga dhexe iyo dunida weerarna wadamada nuclear bomb kale ka mid way inaga markay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu markuu hadlay Somaliland waxaan iska wada shaqeynaa dhinaca horumarka tiknoolajiyada beeraha way didilo wanaagsan Somaliland wali u baahantay madaxweyne Cabdiraxmaan Cirre iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo wasaaradda arrimaha dibadda iyo dadka dhan reer Somaliland maanta in qadiyadeeni ay dal noqono macno weyn bay noo sameynaysaa waxaan inagu sameynaysaa waxa weeye inagu maanta waxaynu u baahannahay inaan helno maalgelin hadday tahay beeraha hadday tahay kalluunka bad baynu leenahay 850 kilomitir oo u baahan maalgelin waxay u baahan tahay muxuu beerayn leenahay xoolayn leenahay waxaasoo dhani waxay inaga dunida tusaysaa fursad taladna kugu daro Soomaaliya waxay ku taallaa meel geeska Afrika juqraafi ahaan oo strategy oo marka laga hadlayo juqraafi ahaan arrimo badan iyo wadamo badan isku muqorinayaan inagu inaan keeno Israa'iil ma hayno boqolaal wadan aynu keeno wadankeena wasiirada madaxweynaha runtii oo dunida cidina isma diido qolo walba say rabto loo shaqeeyo wuxuu fiiyaa oo ka dhalanaya in wadamo kala keeno Israa'iil ma boqolaal kala aan keeno way joogaan wadamo badan iyo macaamil lana leh waxa Imaaraadka kamida Taiwan baa kamida Mareykanka baa kamida Ingiriiska kamida Somaliland تصدق كيس إنه دم واحد ولا معاملة سيدي طلب مدح بنان بل ولا معاملة طبعا إثيوبيا إن شاء الله هاي تبوت زين إمك كم يتخاو ده ماذا غير كيسك ينمو يسوي إن السبب كم ده وده ماذا ده إلى المعاملة وي إن وين شغلوا مدحولو بلانقات بس مني بلانقات في الصباح كرسوني أنت هلاك بي سو ما مقصر سو مدحولو جهرية مش هذا بلانقاضي يعني واحد مثال إنه حل جاي سافرنا يو ديسمبر ولي ديسمبر بند بس عضا يو هذا الكلمة مدحولها بلانقات كها يسي فرنتو تيمي أيام ده بس عضا مدحولها أكبر أنت اللي وصلوا يو ضد بدن أو حري عمل الله ما أنت رياكشن كبحي وحوين ولي مدحونه إنه مدحوين تسوي تغيير معناتها حسن وحال سلعيان أما بيش هسه حال سلعيان والله أرخي وي يرتاح كرسوني الشعب كأد مذكرين وقعدة سليمانو marka laga hadlayo ballanqaadka madaxweynuhu sameeyay wariga ku sheegay ku lahaa diblomaasiyaddu mararka qaar way qarsoodi madaxweynuhu wuxuu abuuray platform weyn oo qulubtii reer Soomaaliland gudaha iyo dibadda midaysay hadday kuwa dibadda tahay hadday kuwa gudaha tahay wixii gudaheena kale oo wax la sixi karo rekoorka iyo legacy-ga waxay u suntantahay madaxweynaha jooga imika Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro duniduna maanta waxaan ku dhaxnaalaa meel juqraafi ahaan dhacda geeska Afrika oo wadamo badani ay ku loolamayaan taasi marka waxay noo saamaxday waxaynu kulaalaynaa biyaha badda cas ee gacanka cadmeed iyo baalmanta oo la yiraahdo dhaqaalaha dunida 12% baa mara iyadoo istiraatiijiyada laga fikrayo dunida wuxuu madaxweynuhu ka iibiyay juqraafiyan halkan ku naalo wadamadan aynu saaxiibada noqonay iyo kuwa kala imanaya iyo kuwa ka dambeynaya meesha ay ku naalo
muhiimka juqraafiyeed aan dhacno iyo sida wadamada aynu saaxiib la noqonayno iyo kuwa jooga iyo kuwa kaleba ay muhiimka ugu tahay inay inoo yimaadaan okay wadamadaas sheegtay aynu jaarka nahay waxaan rajeynayaa arrinta dhacday iyagana way wanaagsanaan lahayd oo wadama aynu xeer naga dhexeeyo walaalnimo hadday aragti wanaagsan oo caafimaad qabta qaataan oo yidhaahdaan war arrintaa iyo waa arrin loo baahan yahay wuxuun bay istarayaan soomaali oo calamo kala duwan leh oo wuxuun bay istaraysaa cidna dhibaato ku yihiin laakiin waan ka xumahay in wadamada qaar ay sameeyeen inay aragtiya dunida wax la sharci wani ku sheegayo wax la sharci ma bashaqeeyo waxay ku soo haraysaa arrinkoogu waan cambaarayna de haddii cambaarey wax tarayso raash iyo Ukraine bay cambaarey wax ka tiri lahayd in dal madax banaan oo 3 sanadood madax banaan haystay xuduudihiisa sugan yihiin ciidamadiisa leh calan gaar leh lacag gaar leh in xuduudo sugan leh oo la yaqaano oo qeexan in maamul shan nin ka madaxweyne tahay in uu yiraahdo waan ka ma talaabada ma qaadi kartaan ama uu ugu hanjabo inuu maxaan ku raadayeen talaabooyin qaadayo laga maarmaan oo arkaan iyagu maxay talaabada laga maarmaan ka war karaa tahay 3 sanadood madaxweyne Soomaaliya ka socda deegaanka mid Soomaaliland muu soo cagarigan asarka askari maxaan ku raadayay dablaay kama iman karo deegaanka mid Soomaaliland maxay sameyn karaan horta Saleebaan oo dunidu waxaan doonayaa inaan ku yar noqono Soomaaliya maanta waxaynu wada lahayn wani ku sheegayo bay inaga inoo isticmaashay dadkeeni lagu dhibaatay xanuun badan ku baray dad badan naga maqan yihiin okay iyadoo dad badan maqan yihiin fogeyn badan bay sameeyeen dadka reer Soomaaliya ilaahay baa wata fogeynta ay sameeyeen ay nagu xumeeyeen shuruucda caalamiga ah ee international law inaga waxay noo dhashay inaynu wax ka weyn helno okay maxay sameyn karaan nimanka waxa uu haboono kali horta waynu ducaynaynaayo dayagaabay hawlo taala oo dunidii la shaqeynaysay 30 sano u dambeeyay waxa ku dhaanayo wax day idiga soo naasacadaan wax idiga soo shaqeyn karnaa ma jirto marka waxaan jeclaan lahaa inay istabartaan idinku dawladnimada maamulataan amaankiina la wareegtaan iyagoo dhaqaale ku maamulaan ma haystaan okay talabaad dawladda lagu leeyahay af un bay u jirtaa walaal skeleton waa qalfoof niman baa jirta ha wax de xabar gudaheega xataa wada maamuli karaysa hada dawladnimo ka hadlay gobolka baraada sheegi maayo laakiin dawladnimo ka hadlay dhowr kilomitir bay walaal maamusha de meeshana dawlad baa ka samaysan haddana waxa ka sii dhex samaysan dawladda xalal oo dawladda kale iyo wadamo kale jooga aadiyad niman marka waxaan ay wax ka tari karayaan maaha kaliya waa cambaarey war waxaan jeclaan lahaa war jaar wanaagsan ay noqono hayna macaamilo ganacsiga iyo wax kale aynu ka wada shaqeyn karno aan ka wada shaqeyno aadiyad weli daawadayaal waxaad nagala socotaan telefishinka qaranka Soomaaliland waxaanu falanqeynaynaa arrimaha ictiraafka Soomaaliland xasano yaa la filayaa dawlad badan bacrafka lagu furay ilaa xalayto wadan hebel baa ku xigaya wadan heblaaya ku xigaya waagnahayo dalkeenu de marka horeba dawlado badan baynu ula macaamilaynay si dawladeed ama si toos ula macaamilaynay wadamada ma Afrika laga filayaa inagoo wadan kaba sheegayn ma Yurub baa laga filayaa ma America laga filayaa ma wadamada Asia laga filayaa bal hadda wada akhriday article badan iyo analysis badan oo la sameeyo Saleebaan wad mahadsan tahay afraatan saacad u dambeeyay warbaahinta dunida waxay aad u baaraysay Soomaaliya halkay ku dhacdo juqraafi ahaan ay ku taalo waxa resource ay haysato beeraha kalluunka waxyaabaha muhiim ah ku tahay iyo sida ay wadamadan xulufada ee dunida maamulayaan ay u daneynayaan buqacad ay ku taalo Soomaaliya okay waxa la diblomaasiyadu waa chance wixii hay'ad diblomaad ama siyaasadda qarsoon ee diblomaasiyadda madaxweynaha iyo tiimkiisa wasiirka arrimaha dibadda iyo wasaaradda arrimaha dibadda iyo dawladda laakiin waxa la saadaalinayaa sida madaxda noo sheegeen in wadamo badan oo ay daba socdaan ka hor dhici mayno waxaana waqtiga ayaa keeni doona iyo wadamada ay yihiin laakiin wadamo badan oo dunida ah baa daneynaya inay tan kala qaataan mid kale oo ku raacaya muxuu ahaa Saleemaan Soomaaliya waxyaaba doodaha raqiiska ay la xalata la wareejin waxa kamid ahay qaxooti baa la keenay la tiriya madaxweynaha arrimaha dibadda gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda Jaamac Gaalush wuxuu sheegay inaan jirin wax laga hadlayo oo la yiraahdo qaxooti Falastiin baa la keenaya laakiin daro iyo masaalixda ay isla qaateen Soomaaliya iyo Israa'iil
uu ku keenay ictiraafka iyo sida Israa'iil u daneynayso buqacda muhiimka ah ee badda cas gacanka cadmeed iyo meeshan inay xaliif wanaagsan ku yeelato oo dabcan ha iyo meeshan muxuu ahaa baab mandab oo ganacsiga maro Waay. oo muhiim u aragtay Israa'iil inay tahay aad iyo aad baad mahadsantahay xasan faarax qamaam dabcan madaxweynaha somaliland wuxuu sheegay shalay markuu hadlayey in ay israa'iil ka mid ahay wadamadii uu u diray 18 May oo iimaylada u diray ee uu ka codsaday aqoonsiga israa'iil ay noqotay wadankii koowaad ee ka soo jawaabay kuwa kalena la filay madaxweyne laftiisa saas uu sheegay marka in ay wadamo badan ku jiraan maxaan ku raayay wadada ku soo jiraan shaki kama taagna warka somalilandna uu yahayba mid ku cadaa 18 May statementkii madaxweynaha somaliland u qoray madaxweynayaasha caalamka ama hogaamiyaasha caalamka aad iyo aad baad mahadsan tahay falaqeynta aynu sameynay haye Saleebaan oo ku daro madaxweynuhu markuu kursiga la wareegay madaxtinimada Soomaaliland dadaal buu galiyay isaga tiimkiisa wasiirada runtii arrimaha dibadda iyo la taliyaashiisa iyo wasiirka madaxtooyada iyo tiimka madaxweynaha runtii la shaqeynaya madaxweyne ku-xigeenka waxay direen dhambaalo ay dunida ku tusayaan Soomaaliland ku taal dunida waxay madaxweynuhu tusay inay Soomaaliland ku taal meel mucjisa ah oo geeska Afrika u baahan codkayga la maqlo la dhageysto duniduna aragto oo cilaaqaad iyo xiriir diblomaasiyad la sameyn karto marka madaxweynaha runtii uu ku ammaanay dadaalka iyo dhambaalada uu diray aad iyo aad marka horeba in diblomaasiya oo ku-xigeenkiisu diblomaasi yahay ayuu ahaa aad iyo aad madaxweyne waan hambalyeynayna shacabka somaliland madaxda qaranka bulshada qaybaheeda kala duwan iyo dabcan guud ahaanba shacabka somaliland aan leenahay dabaaldeg wanaagsan barnaamijkan intaasanu xilliga kusoo afbeeraynaa daawadayaal waxaa naga ballanah inaanu halkan idinkala socodsiin doonaa hadba wararka ku saabsan ictiraafka iyo dhacdooyinka kale caalamka ka dhacayaba inaanu idiin soo gudbino dhammaantiin waa ku mahadsantihiin daawadashadiina bahda telefishinka qaranka oo isku duuban heega bay idin tahay waxaan aad ugu mahad celinayaa cabdillaahi axmedaar cabdi cumar jibriil iyo saaxiibada igala qayb galay barnaamijka xasan faarax qamaam iyo cabdiraxmaan hayaan aad baan idin salaamaya dhammaantiin waad mahadsantihiin aniguna waxaan ahay salabaan cabdi cali kalshaale tan iyo ismaqalaabay dambe nabadgelyo